doorashada 2020 ee Mareykanka ayaa lagu tilmaamay inay ahayd mid fikrad qaldani saxday isla markaana soo gabagabaysay dhacdadii taariikhiga ah ee doorashadii 2016. Donald Trump wuxuu ku guuleystay in ka badan 70 cod tirada codadkaasi oo noqonaya kii labaad ee ugu sareeyay taariikhda Mareykanka. Qaran ahaan wuxuu helay in ka badan 47% isagoo u muuqday inuu ku guuleystay 24 gobol ee ay ku jiraan gobolada Florida iyo Texas ee aadka loogu taageero xisbigiisa Jamhuuriga. Falanqaynta lagu sameeyay qaladaadka siyaasadeed ee Trump uu ku sameeyay doorashada 2020 wuxuu noqday mid ka mid ah siyaasiyiinta xilligaani casriga ee aan helin 4 sano oo kale oo madaxtinimo ah. Donald Trump wuxuu ku guuleystay doorashadii 2016 sababtoo ah wuxuu noqday siyaasi aan hore siyaasadda galgal badan u lahayn, haddana gooyay caadadii hore u jirtay isla markaana ka dhawaajiyay waxyaabo aan hore looga dhiiran. Donald Trump waa nin madax adag, isla weyn oo aan tala ka qaadan xitaa la taliyaashiisa qaaska ah. Mar uu la hadlayay taageerayaashiisa wuxuu yiri Sleepy Joe isagoo ula jeedo Joe Biden waxaan ka qaadayaa doorashada isagoo hurdaya, balse Donald Trump ayaa loo sheegay isagoo ciyaaraya ciyaarta golfka in lagaga guuleystay doorashada. Joe Biden wuxuu si weyn wax ugu bedelay waxqabadkii Hillary Clinton 2016 ee ka muujisay 373 magaalo, isagoo dib xisbigiisa ugu soo celiyay kalsoonida gobolada Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin. Sidoo kalena wuxuu hantay Georgia iyo Arizona. Donald Trump wuxuu sidoo kale taageero la'aan kala kulmay haweenka magaalooyinka ku nool. Donald Trump waxaa dib u dhaca ku keenay qalafsanaanta dabeecadihiisa isagoona caadaystay abuurista xiisadaha isirka ku salaysan. Wuxuu fariimo isir naceeb ah ku beegsanayay dadka aan caddaanka ahayn isagoo si joogto ah u soo dhigayay bartiisa Twitter-ka, isagoo marar badan isku tilmaamay inuu yahay geesi aan la loodin karin, wuxuuna dhiirigelinayay dadka caddaannimadu ay ku weyn tahay. Mararka qaar wuxuu faragelin jiray howlaha laamaha dambi baarista isagoo aad u mooday inuu yahay dambi baare. Dadka qaar Donald Trump waxay ku tilmaameen in maskaxdiisa u shaqeyso sida carruurta amaba ka sii liidata. Mar uu qareenkiisii hore ee Michael Cohen uu ku tilmaamay inuu yahay jiir. Dabeecadihiisa madax adeega iyo qalafsanaanta ku dhisan waxaa sidoo kale ka muuqata sida uu u diiday inuu aqbalo natiijada doorashada ka soo baxday. Donald Trump waxa uu dhumiyay taageerayaal badan oo hore ugu codeeyay. Qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay waxay dhaheen shacabku wuu daalay, waxayna doonayaan wax waliba inay sidoodii ku soo noqdaan siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada intaba. Waxayna doonayaan inay arkaan hadallada naceebka oo istaagay. Waxayna doonayaan dalkan oo midaysan. Shacabka Mareykanka oo isbahaystana waxay ku guuleysteen inay madaxweyne u doortaan Joe Biden. Qaladka siyaasadeed ee uu sameeyay Trump ayaa waxaa ka mid ah inuu ku guuldareystay inuu taageerayaal ku sameysto meel ka baxsan inta ku hareereysan, wayna ku adkaatay inuu sidaasi sameeyo. Dadka dhaleeceeya Donald Trump waxay ku tilmaameen inuu u muuqday mid xukuma caddaanka oo keliya, wuxuuna noqday taariikhda Mareykanka madaxweynihii waqtiga ugu badnaa geliyay si ula kac ah inuu u kala qaybiyo shacabka Mareykanka. 4 sano oo ay kasoo daaleen Trump kadib, shacab aad u badan waxay u codeeyeen si ay u helaan madaxweyne akhlaaq ahaan iyo anshax ahaanba ka wanaagsan madaxweynaha 4 sano ee lasoo dhaafay aqalka cad ku jiray, halka qaarka kale ay soo jeediyeen in 4 sano ee lasoo dhaafay taariikhda Mareykanka laga jaro. Waxayna shacabka kasoo daaleen ereyada anshax xumada uu adeegsado iyo magacyada aan munaasabka ahayn ee dadku ugu yeeraan, iyo dagaalka afka oo aan dhammaadka lahayn. Waxayna doonayaan inay arkaan ugu yaraan dalka oo ay wax waliba caadigooda ku soo noqdeen. Donald Trump waxa uu noqday qofkii loogu necbaa ee abid madaxweyne ka noqda Mareykanka. Shacabka Mareykanka mar ay banaanbaxyo sameynayeen waxay boorarkooda ku soo qoreen erayo ay ugu soo horjeedaan Donald Trump, waxaana ka mid ahaa qof walba oo bani aadam ah waxa uu la dagaalamaa naceebka, balse adigu waa dhiirigelisaa, ma tihid madaxweynahayaga, waxaad tahay cunsuri, dhammaanteen waxaanu nahay soo galooti, wayna ku ceerinay. Sidoo kale ereyadii uu caanka ku ahaa Donald Trump ee ahaa Make America Great Again ama mar kale ka dhig Mareykanka mid wanaagsan ayaa waxaa loo bedelay Make America Union Again, taasoo la micno ah mar kale ka dhig Mareykanka mid midaysan. Sidaasi ay tahay, Donald Trump waxaa u codeeyay dad Soomaali ah, weliba TV-yada soo hor fadhiistay iyagoo leh waa nin wanaagsan, hadalkiisa ha eegin ee qalbigiisa eeg, halka qaarka kale ay dhahaan Trump waa nin ganacsiga ku fiican, sidaa ayaan ku taageersanahay maadaama aan ganacsato nahay. Si kastaba Trump calankiisii wuu dhacay. Trump mar uu la hadlayay taageerayaashiisa bishii Oktoobar aynu soo dhaafnay ayuu sheegay in haddii
uu guuldareysto waddanka ka bixi doona. Hadaladiisana waxaa ka mid ahaa, ma qiyaasi kartaa You imagine if I lose my whole life, what am I going to do? I'm going to say, I lost to the worst candidate in the history of politics. I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the qiyaasi kartaa haddii aan guuldareysto noloshayda oo idil maxaan sameynayaa? Waxaan dhihi doonaa waxaa iga guuleystay musharaxkii ugu xumaa ee taariikhda siyaasadda soo mara. Ma dareemi dooni wax wanaag ah, waxaana laga yaabaa inaan ka tago dalka. Trump hadalladaasi kaftan ayuu u dhahayay, balse way ku dhawowday. Bal aan ogaano halka uu ku